وعيار saaxiibtinimo u dhaxaysay kooxaha ciyaartoyda ah ee warbaahinta gobolada togdheer iyo saaxil oo markii ugu horeysay kula ciyaareed iskugu yimi ciyaartan ayaa ahayd mid lagu xoojinayo doorka isdhexgalka dhalinyarada waxaana ka dhacday ciyaartani garoonka Kharash Stadium ee magaalada Berbera ciyaartan ayaa waxay halkaasi guushu ku raacday ciyaartoydii ku ciyaareysay warbaahinta gobolka saaxil habeenkan caawa waxaan ku suganahay garoonka Kharash Stadium ee magaalada Berbera waxaana wada ciyaari doona labada kooxood ee saxaafadda gobolka togdheer iyo saaxil ugu horreyn waan soo dhaweynaa saxaafadda gobolka nooga timi gobolka togdheer waanu ku soo dhaweynaa magaalada Berbera waana sharaf in mar walba dhalinyaradu kubadda ciyaar karaysa isdhex gasho oo kor loo soo qaado ciyaarihii mar walba saxaafaddu kama daasho ciyaaraha kubadda cagta iyo basketball ciyaaraha kala duwan kale caawa halkan Berbera waxa ku sugan ciyaartoydii ciyaar jiray kubadda cagta oo qaarkood ay odayaal cusub yihiin oo aniga laftooda ka mid ahay maxamedna kulli lodkiiga horreeyay yahay oo dhinac taagan yahay waxaan u mahadnaqaynaa oo halkan aad ugu mahadnaqaynaa hoteelada Mansoor Sea Tourism oo anigu caawa magacooda aan ku ciyaari doono oo ah hotel mar walba dhalinyarada dhinac taagan inamadan ka yimid Burcana caawa si weyn meel soo dhaweynaya ciyaar waxaan halkan dhex mari doonta guul baan rajeynayaa inay saaxil gaadho hadii la yiraahdo gobolka saaxil oo kulan muhiim ah caawa kula leenahay garoonkan sida sharafta iyo wanaagga leh ay noo soo dhaweeyeen noogu maamuuseen inaanu nimaadno oo dhiiri gelino ciyaar kubadda cagta raggani waa ciyaartoydii hore ee cuslaaday waxay ku tusaysaa taasi in aanay wali ka caajisin oo shaqooyinka muhiimka ah ee ay dalka iyo dadkaba u hayaan ay ku darayaan dhiirigelinta warbaahintuna ciyaaraha kala gedisan ee Somaliland waxaan u mahadnaqaynaa kale Mansoor Tourism Sea Hotels oo magaalada Burco oo aan iyaguna magacooda ku ciyaarayno waxaan rajeynayaa inaan kulan qiimo badan ku ciyaarno garoonkan sidoo kale waxaan rajeyn doonaa inay maalin kale iyo kulan kale ay noogu iman doonaan magaalada Burco ee gobolka Togdheer halkaas oo aan ku casuumi doono ku marti gelin doono kulankiisa labaad ciyaar saaxiibtinimo ay nagu dhexmari doonto ciyaaru waxay kamid yihiin isdhexgalka warbaahintuna meel kasto ay joogto waa walaalo dadka kalena way isaga dhowdahay waa booqasho walaalnimo iyo saaxiibtinimo aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa runtii ciyaartu waxay fududeysaa oo ay waxa weeyaan hirgelisaa inay dhalinyarada iyo bulshooyinku isdhex galaan anaguna intaas kadib waxa munaasabad casho sharaf ah loogu qabtay labadii kooxood ee warbaahinta gobolada saaxil iyo togdheer hotel Mansoor ee magaalada Berbera warbaahin ahaan waa muhiim in laga mashquulo oo laga tago waxyaabaha imika dadkeena inta badan mashquuliyay ee balwada koow ka tahay sidoo kale la dhiirigeliyo isdhexgalka iyo in la isbarto niman badan oo aan aqoon wajigooda laakiin aragooda iyo maqalkooda aan maqal jiray laftigooda isbaranay maanta waan ku faraxsanahay anu muddo dheer waliba halkan asuran karo waa joogtay talaabo dhinaca horumarka loo qaaday in warbaahintii ganacsatadii sportiskii intaasiba iyagoo mid ay isdhex galaan wax bulshada u dana caafimaadka u dana isdhexgalka u dana aynu ka wada shaqeynayno saxaafadii sportiskii maxaan ku dhahaa Mansoor team taas oo sharaf inoo tahay inaynu xashada isugu nimaadno runtii baana farxad weey in maxaan ku dhahdaa isdhexgalka gobolada ay sidoo kale u qabsoomaan Cabdi Qani Baafa telefishinka Star magaalada Burco.